iyadoo Somaliland madaxbannaanadeeda dib ula soo noqotay sanadkii 1991 ayaa madaxbannaanadaasi waxay ahayd mid hore ay u heshay sanadkii 1960 kadib 8 sanadood oo ay Somaliland ku horsatay gumaysiga reer Yurub. gumaysigaas oo bilaabmay markii ninka cadi uu ka soo degay qaaradda Afrika kadibna isku xeeray oo qabsaday 1885 ayay ahayd markii dadka Soomaalidu ay u kala samaysmeen 5 qaybood iyadoo kala qaybintooda si sal looga dhigay deegaankii iyo dhaqan wadaagii ay qayb waliba lahayd. sidoo kalena ay ahayd qorshe ay gumaystayaashii reer Yurub ku kala qaybsadeen deegaano markii horeba aanay ka jirin dawlad ka dhaxaysay, hase yeeshee meelaha qaarkood ay ku sugnaayeen wakiillo matalayay dawladdii Cusmaaniyiinta ee xarunteedu ahayd dalka Turkiga. xilligaa waxaa aasaasmay dawladda ilaa maanta jirta ee Somaliland oo sidatay magaca dhulkii Soomaalida ee Ingiriisku xukumayay. British Somaliland. British Somaliland. xukunkaas oo sii socday ilaa iyo markii ay xorriyaddeeda qaadatay 26 Juun ee sanadkii Afrika, iyadoo ummadda Somaliland ay soo martay halgan hubeysan iyo mid siyaasadeed oo ay muddo dheer ku doonayeen inay iska tuuraan heeryadii gumaystaha, kaasoo deegaanada bariga Somaliland ku dhex maray ciidankii daraawiishta iyo militarigii boqortooyada Ingiriiska. 1913 ciidamadii Kaamil Koodhka Ingiriisku watay waxaa lagu jabiyay dagaalkii ka dhacay deegaanka Dulmadoobe ee degmada Kirid beelihii reer guuraaga ee Somaliland. kadib muddo 21 sano oo duulaamo iyo dagaalo kulul dhex mareen dawladda Ingiriiska iyo ciidamadii daraawiishta ayaa sanadkii 1919 ciidamadii Ingiriiska ay dusha sare ka taageerayaan ciidanka cirka ee boqortooyadu Royal Air Force oo adeegsanayay diyaarado dagaal ay dusha sare ka duqeeyeen xaruntii daraawiishta ee degmada Taleex. weerarkaasi oo sababay inuu dhaco maamulkii dhisnaa ee daraawiishta hogaankii sare uu ka mid ahaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasanna oo u tallaabo dhinaca gobolkii la odhan jiray Soomaali Galbeed, halkaana uu ku soo gabagaboobo halgankii daraawiishta waday, inkastoo halgankaasi uu ka tegey rabitaan xornimo doon ah oo ku dhex beermay bulshadii xilligaa jirtay. sidoo kalena weeraradii ciidanka cirka ee Britain ku qaadayeen xaruntii Taleex waxaa ku naf waayay 100 qof oo dumar iyo carruur u badnaa oo ku sugnaa xaruntaas. xilligaa wixii ka dambeeyay boqortooyada Ingiriisku waxay sii waday joogitaankeedii Somaliland intii u dhaxaysay sanadihii 1922 ilaa 1930 waxaa fashilmay qorshayaal ay boqortooyadu ku doonaysay inay dib-u-dejin kaga samayso deegaanadii dagaaladu aafeeyeen ee bariga Somaliland, halkaasoo lagu tala jiray in laga aasaaso dugsiyo waxbarasho isla markaana lagu hagaajiyo hanaanka xoolo daaqsimeedka iyadoo loo xidhi lahaa seerayaasha loona qodi lahaa dhaamam biyo qabatimeed. fulin-la'aanta qorshayaasana waxaa lagu macneeyey mid ku timid dadkii deegaanada ah oo aan xilligaa u bislayn wax wada qabsi dhex mara dawladda Ingiriiska. bishii August 1940 waxaa bilaabmay duulaankii ay gumaysiga Talyaanigu ku doonayeen inay ku wada qabsadaan gobolka Geeska Afrika oo ay qayb ka ahayd Somaliland, taasoo ahayd guushii kaliya ahayd ee Talyaanigu ka gaadheen dagaalkoodii ay ciidamadu ka galeen meelo ka baxsan qaaradda Yurub, kuwaasoo ay kaga horjeedeen xulafadii Allied Powerska intii uu socday dagaalkii labaad ee dunida. ka hor intii aanay ciidamadii Talyaanigu qabsan Somaliland waxay difaacda kala kulmeen dalka Ethiopia oo muddo 8 sano ah oo Talyaanigu la dagaalamay. 1935 madaxweynihii dalka Talyaaniga Benito Mussolini waxa uu ku dhawaaqay in ciidamadiisu gudaha u galeen dalka Ethiopia. Arriverà al benessere, alla potenza e alla gloria. Black men the bugle call, come on, come all the drums are beating and the bugle call, come on, come on, don't mind what was in his head, let us march in battle array, and take a gun in our hand and defend the Ethiopian war, declare. At the League of Nations in Geneva, magaalada Geneva oo xarun u ahayd ururkii ummadaha ama League of Nations oo ah urur ku jiray kaalinta ay maanta ku jirto qaramada midoobay ayaa xilligaa dhigaha u raariciyay hadaladii qiirada lahaa ee uu boqor Haile Selassie ka jeediyay kulan sanadeedkii golahaasi ee sanadkii 1935.
isagoo boqorku sheegay inay dalalka waaweyn ee caalamka ay wejigabax ku tahay gardarrada qaawan ee talyaanigu ku hayo dalkiisa islamarkaana ay Itoobiya u loogeen dictatorkii Mussolini. His Majesty Negus Haile Selassie, I call upon the first delegate of Ethiopia. difaaciga Itoobiyaanku kaga hortageen gumaystiga Talyaaniga waxa uu noqday mid xilligaa helay taageero shacbiyeed oo ballaaran oo ka imanaysa guud ahaan bulshada caalamka gaar ahaan dadkii madooba ee daafaha caalamka ku kala noolaa kuwaas oo meel kasta ka oogay banaanbaxyo ay kaga horjeedeen duulaankii Talyaanigu ka waday gudaha Itoobiya. dalka Mareykanka waxaa safaf dhaadheer geli jiray dhalinyaro voluntary oo Mareykanka madooba kuwaas oo doonayay inay ka soo dagaalamaan dalka Itoobiya naftoodana u huraan dhulkooda hooyo ee Afrika iyo boqorkooda Haile Selassie. waxaana magaalada New York laga furay xarun weyn oo lagu magacaabi jiray Ethiopian World Federation taasoo qaabilsanayd isku dubaridka taageerooyinka loo fidinayo dalka Itoobiya. waa kan Mr. Hillman oo inooga warramaya shaqadii xafiiskaas. Black Americans rallied towards the cause and Black Jamaicans rallied. Mareykanka madow ee isu taagay wax ka qabashadii arrinka ka socotay Itoobiya iyo sidoo kale dadka yimid wadanka Jamaica ayaa lahaa asaaskii ururkaasi oo xaruntiisa laga furay magaalada New York. dadkaasi waxay ururin jireen lacag dawooyin dhar iyo wax kasta oo ay heli karayeen waxayna u diri jireen boqorkii Haile Selassie. dhanka qaaradda Latin America waxaa guri walba laga dareemayay qiirada ay dadku u hayaan dalka Itoobiya halkaas oo ay dagaalyahano Itoobiyaan oo muruqmaalihi dagaal difaacu nafsi ah ay ula badheereen mid ka mid ah quwadihii xilliga ugu awoodda weynaa dunida oo ah dalka Talyaaniga. tusaale ahaan dalka Jamaica beeralayda wadankaasi waxay soo ururin jireen geedka qasabka ee sonkorta laga shiilo kaasoo ay taageer ahaan ugu soo diri jireen dhanka Itoobiya. inkastoo haddaba ay Talyaanigu deegaanada qaarkood qabsadeen xilliga haddana xoogagii wadaniyiinta ee Itoobiyaanku waxay jibiyeen ciidankii Talyaaniga ugu dambeyntiina Talyaaniga waxaa lagu khasbay inuu dib uga baxo dalka Itoobiya. jabkii halkaa ka gaadhay Mussolini ayaa markii dambe qayb ka qaatay in Talyaaniga iyo xulafadiisa Axis Powersku ay sidoo kale ku jabaan dagaalweynihii labaad ee dunida. xilligaa wixii ka dambeeyay ciidamada Talyaanigu waxay bilaabeen olole military oo ay ku doonayeen inay ku soo ceshadaan moralkii ciidankooda kuna ilaawaan guuldaradii ay kala kulmeen dalka Itoobiya. waxaana Talyaanigu sanadkii 1940 qabsaday dalka Somaliland iyo meelo kale oo ka mid ah gobolka. The war in East Africa. Just around the corner from the Red Sea lies Aden, keeping watch on Empire shipping routes and on Italian operations across the Gulf. koob iyo soddonkii bishii August ee sanadkaas ilaaladii ciidamada Ingiriiska ee fadhiya badda cas waxay sheegeen in raxan maraakiibta dagaalka oo Talyaanigu leeyahay ay ka soo tallaabeen gacanka cadmeed duulaanna ku yihiin magaalada dekedda ee Berbera taasoo keentay in Ingiriisku magaalada Berbera si degdeg ah uga baxaan. magaaladaasi Berbera waxaa laga daadguriyay ciidamadii Ingiriiska iyo xaasaskoodii iyadoo askartii dhalashadoodu ahayd Bangaalka iyo Sawaaxiliga loo qaaday dhanka magaalada Nairobi. askartii Soomaalida ahaydna la geeyay magaalada Djibouti qoysaskoodiina loo qaxiyay dhanka magaalada Cadan. barasaabkii Ingiriiska ee Somaliland iyo eeygiisu waxay ahaayeen kuwa ka baxayay magaalada Berbera. bishii March 1941 ciidamada Ingiriiska ayaa dib u soo abaabulay oo duulaan ku soo qaaday ciidamadii Talyaaniga ee Berbera ka qabsaday halkaas oo dagaal qadhaadh ku dhex maray. ciidamada Ingiriiska waxa uu suura gashay goor dambe inay Talyaaniga ka saaraan deegaanadii uu ka qabsaday isla markaana gacanta ku qabtaan magaalada muhiimadda weyn lahayd ee Berbera oo wixii intaa ka dambeeyay ay Ingiriisku ka bilaabeen mashaariic horumarineed oo ka mid ahaa dabka Leitteriga oo markii ugu horeysay lagu xidhay wadooyinka magaaladaasi. markii uu dhamaaday dagaalkii labaad ee dunida sanadkii 1945 waxaa Somaliland ka bilaabmay dhaqaaqyo xornimo doon oo ku socda hanaan madani ah oo aan hubaysnayn kuwaas oo markii dambe u gudbay ururo siyaasadeed oo gumannada doona. ugu dambeyntii 16 Juun sanadkii 1960 Somaliland waxay madaxbannaanideeda ka qaadatay boqortooyada Ingiriiska. xilligaa waxaa hadallo taariikh ummadda u jeediyay madaxweynihii hore ee Somaliland Maxamed Xaaji Ibraahim Ciyaar oo waqtiga ahaa mas'uulkii u sarreeyay siyaasadda Somaliland. waxay tahay in la wada maqlay maanta waxay ahayd iska secretary jawaabtiisii waxay noqotay arrinkii sidii aynu doonaynay inuu dhacay inaad kulligii wada dareensantihiin baan maraynaya. maalintii Isniintii ayaan hadalkii istaagay. markaa waxaan maray dowladda Ingiriiska awalba u sii go'nayd waxa ay doonayaan inay yiraahaan asahatee inta meesha ku jirtay waxa la hubinayay waxaan la doonayo ee dowladnimada la doonayo mid dadkii wada doonayo
dad u qalmaana gacantooda ay gelayso inay tahay in kala hubsanayay dadka labadii casho horaan saragnayba baadniin arrinku la baaray dadka meesha joogay iyo dadku sida xudoonayaan iyo saa loo eegay arrinku inuu inaga wada dhab yahay iyo inuu maxay jibo arrinku inaga yahay la baaray bixi dadka markii taas cadaatay maalintii arbacadii galinkii dambe shalayto ayaa noo yimi colonial secretary magaalada dadweynaha khudbadan kala sheegay ayuu akhriyay hadalkii waxa weeye guntiisii inaynu dawlad ahaano ayuu guntiis noqday marka maanta wada dheer oo aynu soo maray ayaynu maanta maxay hayday joognaa madaxeedii asaxaatay midkii ka dheer kana adag ayaa imika aynu gelaynaa dawladnimo loo qayliyaa dawladweyaan doonayna la yidhaahaa waa suura gashaa maanta deennaba soo qaylinay helay dawladnimadiina asaxaatay ka adag wuxuu yaariga ka sii adag ee maanta aynu isaga madaxa la galnay te helay dawladnimadii laakiin mas-uuliyad badan iyo dhib badan ayay iyana la imanaysaa marka iyadii maanta dagaalka kii u horreeyey ayaynu maanta hellaynu weyn garayn ku najaxnay kamaanta inagu hadhayna kii ka weynaa buu ahaa waxaa nabiga laga sheegay sala allahu calayhi wasalam iyadoo laga soo baxay dagaal weyn markii laga soo fadhiistay asxaabtii wada daalan oo wada quban oo nin waliba maxay hayday qobantiisii dhaahayo ayuu yidhi waa la yidhi dagaalkii yaraana maanta waynu ka soo baxnay kii weynaana iminkaynu soo galay asxaabtii wada naxday baa layidhi markaasaa layidhi yaa rasuulullaahi dagaalkaynu maanta gallay mid ka weyn ma aanu filaynin ka weyn waa maxay dagaalkan aanu soo galayna midaynu cadow la dagaalamayni buu haa buu yidhi kaynu maanta gelaynaa iminka gallayna kaynoo hadhayna waxaa weeye kaynu nafteena la dagaalamaynay wixii xun iyo wixii san nafteena ka celinaynay wixii xun wixii sanna ugu diraynay markaas innagii maanta ajnabi aynu dawladda u saaraa ama aynu waddankeena ka kaxayno dhammayn kaas way naga tegaya gasideetan sabaan qalankaanu sugaynay eesaankiisa ahaynow sirma weydo hilaaqadayo sagal maanta daroorayo sigadiinaga maydhayo saqdhaqaanu ahayne kii soo saaray cadceedo samada beweekaaya xidiga mid la siiyo saaxirkii kala guure ka hor intii aanay muddo 7 gudihiisa oo keliya midnimo aan la mahadin la gelin dalkii Soomaaliya Talyaaniga xornimadiisa ka qaatay Soomaaliland waxay ahayd dal madax banaanadiisa haysta oo ay ka dhisan yihiin dhammaan haykalkii dawladda lahayd sida xukuumaddii golayaashii baarlamaanka iyo dawladaha hoose xisbiyadii siyaasadda lacag u gaar ah iyo waliba hay'adihii garsoorka oo ay taageerayeen ciidamada booliisku inkastoo muddo 30 sanadood ay ka shaqeynayeen midnimadii labada dawladood haddana ummadda Soomaaliland waxay ahaayeen kuwo markiiba dareemay inay si fudud gacmahooda uga baxday xornimadii ay dhibka badan u soo mareen waxaana muddo yar ka bacdi saraakiil military oo dhalinyaro ah oo reer Soomaaliland ay sameeyeen inqilaab ay dawladnimadii Soomaaliland ku soo celin lahaayeen hase yeeshee inqilaabkaasi ma noqon mid guuleysta waxaase isku daygoodu ka tagay dareen shacab oo muujinayay in ummadda Soomaaliland ay ka fikireen sidii ay dib ula soo noqon lahaayeen madax banaanadooda midnimadii kaga dhexluntay bilowgii sanadihii 80-aadkii qarnigeena dhaafina waxaa la aasaasay ururkii SNM oo horkacayay howlgallo naf iyo maalba loo horay oo dib loogu xoreeyay dalka Soomaaliland 10 sanadood oo halganka hubaysan socday ka bacdina waxaa dhintay xukuumaddii military ee xilligaa jirtay iyo dawladnimadii lagu mideysnaaba 18 May sanadkii 1991 shirweynaha ay magaalada Barco ku martigeliyay golihii dhexe ee SNM oo uu shirgudoominayay gudoomiye ku-xigeenkii ururkaasi mudane Xasan Ciise Jaamac markii dambana noqday madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayna ka soo qayb galeen siyaasiyiin iyo madax dhaqameed ka kala yimid deegaanada Soomaaliland ayaa shirka waxaa lagu miisaamay faa'iidada iyo khasaaraha ay ummadii waqooyigu ka heshay midnimadii 30 sanadood soo jirtay waxaana markale lagu gaamiyay qodobo ay ugu waaweynayeen 1 in Soomaaliland madax banaanadeedii dib loo soo noqoto 2 in la dhiso dawlad gacanta ku qabata maamulka dalka 3 in la abuuro cadaalad dadka u dhaxaysa xukunka dalka iyo wax kasta oo kalena si siman loogu qaybiyo beelaha Soomaaliland lana adkeeyo nabadgelyada waa kan mudane aadan axmed diiriye oo xilligaa shirweynaha ka dhex aqriyay go'aamadii waxgaradku ku gaadheen halkaas qodobada soo qaadanada wuxuu ahaa inuu weygaa isu taago iyo koonfur raacada laga hadlayay waa jinaha qodobka koowaad ahaa qodobka muddo dheer baa laga dooday aad baa loo lafaguray waxaa laga xisaabtamay
oo dib loo bilaabay koobii 30 sano ee aynu dawladda ahayn wixii faa'iido haddii aynu ugu yimahay aynu ka helay iyo wixii khasaarayna soo gaaray si daba looga xisaabtamo ma yahayn shir caadiseed ma ahayn oo yahay maartay si saddex arrimaha loo qaadanayo ama maxaa ku dhahay la isaga dul cararayo ma ahayn shir afduub oo maxaa ku dhahay wax la kala maroosanayo waxa shirki dimuqraadiyad ah looga doonayo oo cid waliba codkeeda iyadoo fara iyo fikrad ay qabto ay maartay ka soo jeedinaysa waxa arrintaa markii si dheer looga xisaabtamo waxay noqotay oo meeshii ka soo baxay in 30 sano wax faa'iido oo la taaban karo saddex qodob baa laga helay oo iyaga laftooda ku yimid dhibaato iyo tacab hawl badanna loo soo galay oo dadka inta xoogaa soo tahay waxa weeye dekada berbera warshada sibirka iyo berbera ka samaysan iyo wadada laamiga wax kale oo horumar oo laga sameeyay waa la waayay kuwaasna sida ay ku yimaadeen waa la wada waxay ognahay warshada sibirka inay mararka qaarkood gaadhay in koonfur laga sameeyo dhagaxana laga guro maxaa ku dhahay halkay markaa ka samaysan ilaa xadkaa inay gaadhay baa la ogyahay oo dadka xoogaa soo ogyahay wax faa'iida intaas baa dhinaca laga soo qaaday waxa dhinaca kale ku qormay yana timid in khasaaraha aynu hadda ognahay ee ugu weyn yahay burburka iyo baabaa haysta maxaa ku dhahay ka muuqda magaalooyinkeenii ee naf iyo maalba loo baaba'ay inay ka yimaadeen israacii ay israaceen koonfur iyo waqooyi ayaa halkan soo baxay markaa waxay noqotay labadii marka la isu miisaanay miisaanku u badan yahay dhinaca khasaaraha sidaa awgeed waxa la isku raacay oo shirkii isku raacay bal aragna israaci wuxuu inoo dhalee inaynu waqooyi gaar isu taago gaarkiisa isu taago oo aanu koonfur raacin oo aynu teena kala barta baxno oo tijaabino teena waqooyi gaar isu taago waa la isku raacay qodobkaa koowaad labaad wuxuu ahaa in lagu dhaqmo shareecada islaamka qodobkaa isagaa markii runtii dood badan ma yeelan laakiin waxa weeye markii la eegay shuruucda kale ee maxaan ku dhahay magac kastaba ha loo bixiye bini aadamku sameeyo ee aynu ku soo dhaqmi jiray markii la eegay dhaqan xumada iyo qiyamka ka lumay dadkii ee dhaqankii iyo qiyamkooda muddadii dheereen maxaa ku dhahay daaquudkii dalka imika laga xoreeyey xukumayey uu lagu abuuray ee aynu gaadhnay heer xaaraantii iyo xalaashii aan wax kale soo caabin jirin oo la xalaashaday aad moodin xaaraantii la xalaashaday marka aynu eegnay dadkeenna oo aqlabiyadiisu imika tahayba ama xooggiisu yahay dadkii dhashay muddadaas aynu sidaan ahayn khariban ama intii ku caqli eegtay ee lagaba yaabo inay u haystaanba hagaagiba inuu caan ka yahay waxa la isla arkay inaan wax kaloo ina soo dabaali karaaba jirin waxa kaloo la isweydiiyey wixii aynu ka dagaalanay maxay ahaayeen waxay noqotay oo saldhig u noqotay cadaaladdarro halkaana waxaa ka soo baxday baahideena koowaad inay tahay cadaalad inaynu helno cadaaladdu halkay ku jirtaa markaas weydiiyey cadaaladdu waxay noqotay diinta islaamkooda inay ku jirto waxayna dhibtay oo inu wada ogsoonahay ba hala idhaa qabyaalad oo eex iyo imtixaan dabada ku wadata taana waxaa la isla gartay waxaasoo dhan lagaga bixi karaa inay tahay oo keliya innagoo ku dhaqana shareecada islaamka ee ilaahay inoogu talagalay kownkan markuu ina dhigay isagu uu inagu abuuray inaynu ku dhaqanno oo masaalixeenu oo cid ka taqaana ilaahay jirin uu ugu talagalay inaynu taa qaadanno ayaa iyadana la isla gartay halkaa waxaa la soo gelaya qodobkii hore la xidhiidha oo ah waxa la yidhaahdaa haddaynu gaarsi taagno layna ixtiraaf maayo ictiraafka cidda laga doonayo waa bini aadamka oo yani maarta say doonayaan reegaysa ictiraafka laga helayaaba ayaa la leeyahay markaa annagu waxaanu isla garannay oo aanu mudnaanta siinay
عدة رسالة جليلة ما إلي نغطي إلهي إلهي ومركا قلوب بني آدم كحكومة إستيقى أيها مركا عدو البي نوصو قصد دونه وينوفو إذن دونه حتى أي طريقي سرعنا وكفوت معنا وحا وكفوت معي إننا وحدي بعطا الله صومين مركا أنسياء آمنه أنكو فالكونانو أنو ديارجرون إنه يسوينه وقالنا وحا هذين السلاة كفوت معنا عكس التعرون ديارجرون إنه وحد عبادنا وإمنيه مركا قانا ولوبا بنا عايقو ديارجرون ولوبا تدحروحوها إلا السقوط نبالجرير وغوي taas waxa weeye oon waan ku jirin in baahida koowaad badda ay tahay oo haddii aan nabadgelaysiin waxyaalahan aynu ka soo hadalno oo dhan waxba ka jiri maayaan wax la horumar jiri maayo dowladnimo jiri mayso walaalnimada aynu ku wada fadhinaana jiri mayso waxa la wax surobayaan ma jiraan sidaa awgeed iyadana si wadajir ah ayaa la isla gartay oo la isugu waafaqay in nabadgelyadii waqooyi laga shaqeeyo oo la sugo allana lala kaashado ilaahay ay nala qabto qodobka afraad wuxuu ahaa in si dhaqso ah loo dhisay dowlad waqooyi oo loogu dhawaaqo taas iyadana waxaa keenay waxa aynu imika ku soo jireen muddo 3 bilood iyo dheeraadna hadda xor ahayn oo dalka joognay dowlad la'aantu dhibaatada ay leedahay waynu soo wada taabanno waa aragnay markaa baahida jirta awgeed ayaa qodobkaasna meesha loo keenay iyadana waxaa la codsanayaa oo madaxda ururka laga codsanayaa in si dhaqso ah dowlad loogu dhawaaqo waqooyi taasina qodobkaas baa ugeeyey qodobka shanaad waxa weeye in golayaasha ururka iyo dowladdaba si cadaalad ah loogu qaybiyo beelaha waqooyi degan الله أكبر شريعة الإسلام كائن وقالنا إن فريسة ولا الكنبة إن فريسة ولا دقيقة إن فريسة هو دقنا إنه أقول هيدين ولا أهم من هذين العدالة وحقوق الإنسان وين أقول دقنا بأي وسيلة واحد صغير قيسان إنه واحد صغير من دحي هذا وين عدالة كل مالوي هو هذا بس الشيء